Xaliimo Cali Xasan oo ah haweeney degan dalka Sweden ayaa maanta isbitaalka guud ee magaalada Gabiley ugu deeqday dawooyin kala duwan iyo qalab casri ah oo isugu jiray shaybaadho iyo qalab kale oo caafimaad isla markaana isbitaalka magaalada Gabiley waqti xaadirkan aad ugu baahnaa waxaana deeqdan si toos ah loogu wareejiyay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Gabiley Dr. Deeqa Cumar Xaaji Saciid waxaana goobjoog ka ah deeqdan maayarka degmada Gabiley Shacaib Maxamed Muuse xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi iyo agaasimaha waaxda cashuuraha ee dawladda hoose waxaana ugu horeyn deeqdan faahfaahin ka bixisay Xaliimo Cali Xasan oo ah qof muwaadin oo ka soo jeeda dalka Somaliland isla markaana daawooyinka isbitaalka Gabiley ugu deeqday si naxariis leh iyadoo horena isbitaalka caasimada Hargeysa ugu soo deeqday dawooyin iyo qalab caafimaad oo noocan oo kala waxaan ahay qurba joogtii ka timi Sweden magacayga waa Xaliimo Cali Xasan marka waxaan ku soo deeqay alaabta qalabka dhakhtarka ayaan ku soo deeqay wadankeena Somaliland qayb waxaan si Hargeysa qaybna waxaan keenay halkan Gabiley marka ala kulli xal insha Allah hadhow waxaan rabaa in ka badan in kaagu aan soo saaro inta waa samples weyn aan igu soo talagalay waxaan la soo koray diyaaradan la soo koray marka insha Allah hada waxaan bilaabay qorshahan inaan alaab badan inaan aruuriyo dhakhtarkii baan la hadlay director-keena aan la hadlay dhakhtarkaaga Sweden waxaan ku wixii sariiro la tuuriyo iyo wixii wheelchairs la tuuriyo in meel ay dhigo si aan bakhaar ugu aruuriyo marka hadhow transaankaaga u soo saaro insha Allah aan wadankeena ku deeqo ma Hargeysa iyo Gabiley kaliya Somaliland sida u dhantahay insha Allah in aan meel kasta u gudbiyo ayaan jecelahay marka insha Allah isoo duceeyo wax kasta in Ilaahay khayr ka dhigo wakaas Dr. Deeqa Cumar Xaaji Saciid ayaa u mahad celisay Xaliimo Cali Xasan oo ay ku tilmaamtay shakhsi dadaalaya oo dadkeeda caawinaysa aad bay u mahadsantahay Xaliimo deeqda ay noo keentay jaaliyadeena ka timid maxay haytay Sweden waxyaabo fara badan maxay haytay oo wax qabanayana way ku jiraan wax fara badan oo loo baahayna waad keentay insha Allah ta'ala waxaan intana waa sample waxay ku siin doontaa insha Allah reflection waxyaabo fara badan iyo meelaha aad keeni doonto iyo waxay dadkeena u baahan yihiin insha Allah ta'ala waxa weeyaan waxa la yiri maxay haytay rasuulka yiri wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi waxa weeyaan waan isgargaarsanayna dadkeenu baynu wax u qabanayna